alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaahayna siiyey isaga ku abaale kusugan hadda goobta oo raba in wax iibsado marka waa aragtaan haddeer caaway ayaan ku soo talagalay inaan ciida insha Allah oo loo bari in ka dhimatay sida loo waxaan jecelahay inaan caaway halkan ka iibsado dharka ciida marka ciid wanaagsan baan leeyahay runtii soo dhawaad ciidii hore oo soo maray iyo ciida caawa ugu soo baxday halkan maxay ku kala duwan yihiin ciidii hore iyo ciidan runtii waxaan is dhihi karnaa wax badan bay kaga duwan tahay maaragta maadaama sanadkan ay tahay runtii sanad ka duwan sanadadii hore oo bishan oo kale rabadaan aan jecleen inaan runtii si fiican ugu ciidno maanta waliba isagoo aan u jiro cudurka la yiraahdo COVID-19 aragtaa wali in wax dadku dareemahayn inuu jiro iyo in kale runtiina dadku ciid sidoodii caadiga ahayd ay suuqa u soo aadeen baana aragtaa oo ka firanaysaa caawa insha Allah marka إن شاء الله وحن جعلنا إن نسي نبذا كعيدنا إن شاء الله. بسم الله مقعيق وهنا عبد الرزاق إيداني إيدي وروحي كوكلا دويني وحيابا بدن إيدي وروحي إيد ما شاء الله نسكا أذيقنا إنه يسكو دماشادنا لكن إيدا عبسي باسكا جدوحا ويانا وعبسنا بانو إيدينا إن شاء الله خير. أنا سعد عبد الله إيدان إيدي وروحي كدوين تاواي وحيالي وحي ما عذر لو COVID-19 waxyaalii qaali baa laga dhigay shayga ma goyn kartid ilmihii wax kaliya uma gadi kartid mara laga yaabaa horay u joogtay $7 inay maanta dhahanin $11 aadan gadi karin cudurka awgiisa fara cusub aan imaan waxyaalihiina la ku kordhiyay macaamiishii la kordhiyay annaga aan waxba gadan karin dad waxa jira dan yar oo aan waxba gadan karin oo waxa aan awoodin marka wallahi waa dhib ilaahay naga saaro ilaahay subxaanahu wa ta'ala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan waxaan salaamayaa bulshada ku nool magaalada Garowe caasimadda habeenka caawa ah waxaan aad ugu faraxsanahay u diyaar garowga ciida oo ah ma habeenkii laba habeen baa ka harsan hadii ilaahay noo sida la filayo waxaan aad ugu faraxsanahay anagoo ilaalinayna ixtiraamka iyo kala fogaanshaha inaanu si nabadgelyo aan ugu adeegano carwooyinka caruuraha iyaga baan wadanaa alxamdulillah ciidan runtii waxay leedahay waxyaabo badan oo lagu xasuusto bay leedahay waa xilli runtii xasaasi ah bay ku soo beegantay oo laga cabsi qabo xanuunka safmareenka ee COVID-19 aniga runtii aad bay ii saameysay inaan meelo badan aan mari waayo oo meelaha macaamiisha la ahaa aan wax ka iibsan jiray inaan u gudbi waayay ayay sababtay laakiin dadka waxaan ku boorinayaa inay space sameeyaan oo ay ka fogaadaan xanuunka COVID-19 oo ay ku baraarugsanaan tilmaamaha iyo habraacyada ee arrimaha caafimaadka ciidu runtii aad iyo aad ayay runtii dadku ay mataqaanaa ugu faraxsan yihiin waa aragtaa waxa la iibsanayaa dharka ciidka oo loogu talagalay in lagu ciido suuqi waa kan maanta ayaan taaganahay runtii si fiican ayuu kala socdaa anaguna aad baan ugu faraxsan rajaynayaa ciidkan ciidkiisa kale inaan ku gaari doono bashbash iyo barwaaqo aad iyo aad baa u faraxsanahay marka labaad magacaygu waa Yuusuf Axmed Cismaan waxaan ka mid ahay dhalinyarada ee Garowe ku nool oo reer Aylka degmada Ayl ka mid ah micnaha dhalinyarada halkan wax ka barta anigoo ah kabtanka degmada Ayl waxa halkan aad iyo aad dareenkayga uga cabiraya maadaama ciid ay tahay suuq ay dadku sida loo shidan yahay iyo ay tahay marxabeynta iyo micnaha farxadda taal meeshan iyo sida nabadda lagu adeeganayo aad iyo aad waxaan moogtahay halkan lagu soo koobi karin si nabad leh halka ku mareena ku adeegana dharkeena ku qaadana dooqyadaarna kula bixina hadhow anagu nabad qabna xafidadeena ma sha Allah wax micnaha ilaahay baan ugu mahadinaynaa bil rabadaanna waa lagu jiraa dadkana waxa ku leeyahay ciid wanaagsan